halkani waa Jabba TV. barnaamijkeena maanta waxaa idinku soo gudbin doonaa dagaalkii loo yaqaanay dagaalkii yaraa ee carabta dhex maray. yuu dhex maray dagaalkaas, sanadkuu dhacay. barnaamijkeena ayaa kaga bogan doontaan mar kale iyo Jabba TV. dagaalkii yaraa ee carabta dhex maray. dagaalkan ayaa wuxuu dhex maray dowladda Masar iyo Liibiya sanadka 1927 kadib markii dowladda Masar xiriir fiican la samaysay Israa'iil, taasi oo in badan dowladaha carabta ka xanaaqeen. hogaamiyihii hore ee dalka Liibiya Muammar al-Khadaafi ayaa amar ku bixiyey in 22,000 shaqaale Masaari ah oo ku sugan dalka Liibiya si degdeg ah uga baxaan dalka. sidoo kale hogaamiyaha ayaa amray in shacab mudaharaadsan oo Liibyaan ah lug ku galaan dalka Masar. arrintan ayaa waxay mid hoose u socotay ilaa shacab caraysan ay gaareen xuduudka dalka Masar iyo Liibiya. 21 Juulaay 1927 isla sanadkaasi ayaa waxaa bilowday rasaas isweerarsan ciidamada xuduudka. sidoo kale ciidanka Liibiya ayaa madaafiic ku garaacay magaalada Saluum ee dalka Masar. markaas wixii ka dambeeyay dowladda Masar ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Liibiya. diyaaradaha dagaalka Masar ayaa duqeeyay saldhigyada ciidanka Liibiya sida magaalada Tobruk. sidoo kale waxay duqeeyeen saldhigyada ciidamada cirka ee diyaaradaha Liibiya ay ku sugnaayeen. jaamacadda carabta ayaa durba ugu dhawaaqday labada dhinac in xabad joojin rasmi ah la sameeyo, miiska wadahadalkana la iskugu yimaado. hogaamiyihii hore Yaasir Carafaad iyo madaxweynihii hore Aljazaa'ir ayaa garwadeen ka ahaa wadahadallada. 24 Juulaay 1927 ayaa xabad joojin rasmi ah lagu dhawaaqay. dagaalkan ayaa wuxuu socday 4 maalmood oo xiriir ah. dagaalkaas ayaa wuxuu dhaliyay khasaaro badan oo labada dhinac soo kala gaaray, inkastoo dhibka ugu badan uu soo gaaray Liibiya. dalka Masar ayaa waxaa dagaalka ugu dhintay 100 askari, halka 4 diyaaradood oo nooca loo yaqaano MiG-21 loogu soo riday. Liibiya dagaalka waxaa ugu dhintay 400 askari, 60 dabaabadan waa loogu gubay.